Komisanka heer qaran heer gobol iyo heer degmo ayaa maanta kala diray dhalinyaradii ka hawlgeli lahayd kaar qaadashada oo bari ka bilaabmasa degmooyinka kala duwan ee gobolkan Awdal waxaana 4 degmo loo kala diray ciidamo shaqaalihii ka hawlgeli lahaa deegaanadaasi ee kaadhadhka u qaymi lahaa dadkii isdiiwaangeliyay waxaana munaasabada kala diridda shaqaalaha kala duwan iyo gaadiidkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal waxaana uu sheegay in looga baahan yahay bulshada reer Awdal inay soo dhaweeyaan dhalinyarada ka shaqeynaysa komishanka gobolka Awdal iyo Salil oo xaruntoodu ay jaamacaddan camuud tahay si wanaagsan bay hawsha u socotay ilaa hadda waxa kaliya aynu u baahanahay waa dardaaran aynu la dardaarano dhalinyarada iyo dadka loo tagay labadaba dhalinyarada hawl bay u soo qalab qaateen waxaan leenahay hawsha Allah idinku gargaaro si daacadnimo iyo hufnaan iyo sinaan ku jirto hawshiina ugu taa waxaanu dadweynaha labada gobol iyo goobaha la tagay dhamaantood baan leenahay marka hore cid idin timi hakadidinayaan idin kana didineen qalbi furan ku soo dhaweeyay idin rajeenayaa in kontonkii hore naga baaqday inteeni dambaba aynu muddada 3 cisho iyo 7 kale ee extensionkaaba ku qaadano waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubin ka tirsan komishanka qaranka ee Somaliland iyo xubin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee UCD labadooduba waxay soo dhaweeyeen barnaamijkan oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid wax ballaaran ka taraya kaar qaadashada iyo u diyaar garowga doorashooyinka ciidamadii iyo hawlwadeennadii ka hawlgelayay qaybinta iyo gaadiidkoodiiba waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada booliska iyo dhammaan shaqaalihii nagala qayb qaatay waxaanu kale u mahadnaqaynaa madaxda gobolka iyo madaxda degmada iyo dhammaan ciidii gacan ka geystay waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan kaararku goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono 4 degmo ee gobolka ku gooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo waxaanu filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iideysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan oo ay qaadan doonaan sidii hore loo sheegayna kaararku waxay ka kooban yihiin dadkii isdiiwaan geliyay 2020 iyo dadkii 2016 isdiiwaan geliyay laakiin aan kaarka qaadan ee kaarkooda dib u noqdeen oo imika fursad u haysta inay mar labaad ka faa'iideystaan oo kaarkooda qaataan qaalii 4 degmo ee gobolka Awdal ka kooban yahay kuwaasoo maanta la Anbabixiyay hawshoodina ay halkan ka socoto beritoole 31 Maarch ilaa 2 Abriil sidoo komishineerku sheegay waxay ka socon doontaa gobol oo 4 degmo ka kooban 2 maalmood oo wax la habaynayo oo la sugaynayaa jirta iyo 7 maalmood oo degmooyinka ay ku soo noqon doonto anu waxaan kula dardaaranayaa maanta anu ka wakiila 3 xisbi in kaadhar hore ka noqday degmada oo ilaa 45 kun oo kaadha waxaan doonayaa in maanta aan u sheego inaanay idinka noqon kaadharkan dambe kaadhar badan baa idin yaala waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka ee gobolka Awdal Faarax Sidci waxana uu ka sheekeeyay qaabka shaqadu u socon doonto waxana munaasabadaasi lagu kala dirayay gaadiidka iyo shaqaalaha goobjoogka ah gudoomiye ku-xigeenka komishanka qaranka ee Somaliland Mustafa Sheekh Maxamed Daahir Dawal goobaha gobolka Awdal oo dhan 4 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halan ka baxaya oo bilaabmi doonta beritoole oo ah bisha 31 taasoo socon doonta ilaa 2 bisha waxa weeyaan Arbacada Khamiista iyo Jimcaha intaas ayay socon doontaa kaar qaybintu kaarka waxa qaadan doona hadii la yiraahdo dadkii uu maxaadanay ka noqday kaarku ee isdiiwaangeliyay sanadii 2016 isdiiwaangeliyay ee aan qaadanin kaarkooga goobtii uu ka galay diiwaangelinta ayaa la geynayaa halkaas ka doonanaya waa qofkii aan qaadan weeyaan waxa kale oo kaarka qaadan doona dadkii la diiwaangeliyay 2020 2021
ee la diiwaangeliyey ayaa iyaguna qaadan doona haddii la idhaahdo waxa aan ku jirin dadkii uu kaadhku ka hadlaabay ama goobbeddelka ahaa ee degmo ilaa degmo la iskugu beddelay iyagu shahaadadii la siiyey ayay maalinta codaynta la iman doonaa haddii ilaaha idhaahdo marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in ay magaranaysaa ay u diyaargaroobaan lana socdaan cidda kaadhkii ka maqan yahay ay halkaa u doontaan ee kaadhkooga lahay goobtii ay iska diiwaangeliyaan waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliya